ma aha sharad inaan cajabiyo dadkoo dhan anigabay ma cajabiyaan dadkoo ka gaabso sharka ka aamusan hadduu ku hadlo awooddiisa kelmad keliya ayuu ku baabinayay qalbigaaga nin xikmad lahaa ayaa waxaa la weydiiyey maxay samadu saafi la tahay kadib intuu dhoolcadeeyay wuxuu yidhi maxaa yeelay dadba kuma noolaa haddaad shay ku khasaarto ha xaqiiqsan inaad khasaartay isaga maalin wuxuu ilaahay kugu arsaaqayaa maalin shay aanad xaqiiqsan doonin in aad leedahay hadduu jidhku qaawan yahay waa ilbaxnimo balse aynu u hanayno xayawaannada ilay waxay leeyihiin ilbaxnimadoo dhane layaabka dunidan inay leedahay waxay ku bixinayaan xolosay qurxiyaan qababkooda waxaanay ka caajisayeen inay qurxiyaan akhlaaqdooda waa nambarka ku tusinaya inay waala yihiin axmaq wuxuu ka hadlaa wuxuu samayn doono kibraaliguna wuxuu qabanayo ka caqliga lihina wuu qabtaa mana hadlo haddaad ku khasaarto dagaalka marar badan waxay ku tusinaysaa sida dagaalka ugu guulaysan lahayd furaha guuldaradu waa inaad isku daydo inaad raaligeliso qof kastood garanayso guushu ma aha shay kasta balse doonitaanka guushu waa wax kasta miisaanka ilaahay wanaaggu wuxuu kaxeeyaa xumaanta miisaanka dadka hal xumaanoo qudha waxay masaxaysaa dhammaan wanaaggii oo dhan haddaad ku fashilmato rumaynta riyooyinkaaga beddel waddooyinka joodooyinkaaga dhirtuwa way beddeshaa caleemaheeda balse ma beddesho qolofteeda qofka noolaada bilaa mabda' wuxuu dhintaa isagoo bilaa sharafa waxay ku niyijibinayaan kun jeer waxaanan lika doonayaa in aynan isbeddelin ha aargoosan sug oo ku fadhiso kursi webiga agtiisa maalin maalmaha ka mida wuu ku iman doonaa isagoo socda oo xambaarsan qaabkii cadowgaaga legdanka biyaha iyo dhagaxa waqti kadib biyaha ayaa guulaysta sharafta waajib maaha in la helo balse waxaa waajiba in aan la lumin waa noloshaadii cidna ha ka yeelin inay ku barto sidaad u noolan lahayd haddii kale wuxuu isku dayayaa in uu kaa leexiyo ha isdhiibin ashyada waaweyn waxay qaataan waqti dheer had iyo jeer waxaa jira qalbiye aan ku nacayn xataa haddaad xumayso iyo qalbiye aan ku jeclaanayn xataa haddaad sharafto wax kastoo rajaynaya noloshan waa sharaftayda ereygaygana kuma khasaarin doono dadka hortooda qofku doonaba ha ahaadee hadal adigoo xanaaqsan waxaad odhan doontaa hadalka ugu weyn waxaanad ka murugan doontaa noloshaada oo dhan ixtiraamkaaga ee dadku yacni maaha inaad u baahan tahay ee waa akhlaaqdaada xataa haddaanay mutaysan ha furin qalbigaaga ilaa aad hubinayso nadiifsanaanta cidda ahaanaysa had iyo jeer xasidku wuxuu ku arkayaa kibraani ka ku jecelna mid wanaagsan